السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أصحابي. inkastoo aanan rabin ay bil soon tahay laakiin waxaan arkay arrin aanan ka aamusi karin marnaba aanan ka aamusi karin inkastoo jeclaa inaan arrintaas ka soo afjaro laakiin maanta inbaa wuxuu yiri hadda ka hor cibaadaysaan cindiga ku hayee danuba way igu celin ciyaarihii haahey ninbaa saa yiri hadda ka hor waxaan arkay hadda ka horna waan ka hadlay asxaabey oo anigii idin iri arrinta shirqoolkii loo dhigay gabadha la yiraahdo Safiya Tusmo waxaa ku jira dad fanaaniin ah baan idin iri waxaa ku jiraan ku iri fanaaniin waxaa ku jiraan idin iri samafalayaal waxay ahayd dalad isku xiran oo shirqoolka gabadhaas u dhigtay baan hadda ka hor idin iri asxaabey haddii aad ma aragtay u soo raacdaan barnaamijkaygii hore fanaaniintii aan idin sheegayay baa maanta isi soo tuuray waa aamusi kari waayeen waa isqarinayeen daaha gadaashiisa ay ka soo heesi jireen laakiin maanta bannaankay iskeeneen waad aragteen asxaabey maxaan idin iri xaqa ninka la yiraahdo ma daboolmo wuu dilaacaa haddii afka laga xir dhinaco ka dilaacaa haa fanaaniinta shirqoolka wax ka dhigaya Safiya Tusmo baa maanta soo hadlay asxaabey idinkuna bal ila arka gabadha la yiraahdo Nimca Degan oo soo hadashay oo maxay ahayd gabay maxay ahayd ku soo garaacday Safiya Tusmo baan rabaa ina wadaagtaan idinkuna asxaabey gabaygaas ila soo arka markaad ila soo aragtaan oo soo dhageysataan hadalka aan idin sheegayay ka soo falceliya asxaabey inay hawsha ahayd dalad isku xiran waa idin sheegay anigu ma rabin Safiya Tusmo arrinteeda dambe inaan ka hadlo balse markaan soo arkay arrintan baan aamusi waayay haddaan ku saxanahay iyo haddaan ku qaldanahay idinkaa ii soo jawaabaysiin midda labaad Soomaaliyey waxaan horumarka gaari weynay waa qabyaaladda bahasha la yiraahdo anu hadda ka horna waa idin sheegay talaalkii qabiilku wuu soo socdaa mar dhow buu soo baxayaa Soomaalidaan lagu bilaabay waa idin sheegay qurbo joogta ah ma garateen marka gabadhaas waxa ka soo hadalsiiyay waa qabyaalad waxay ahayd daladii shirqoolka Safiya Tusmo qaybihii ugu waaweynaa bay ahayd maanta laakiin waa soo tuurtay waa ishayn kari weyday marka walaalayaalow waa idinkaasa bal ila soo daawada gabadhaas gabayga ay soo tirisay oo ay ku karbaashayso gabadha la yiraahdo Safiya Tusmo bal ila soo daawada ها soo ark daawasho wanaagsan gabaygana waa kaasa bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan rabaa inaan ku duubo tixyar oo korkaxaadisa ama gabay aan badnay oo jawaab u ah gabadha Safiya Tusmo la yiraahdo waxay gabay ku sheegtay oo halkan ku soo xariiqday boggeeda Facebook waxay tiri ciida galuhu gaan wuu lahaa aad u gada weyne guurtiya cuqaal waa lahaa gobi ku maataane ma garan karaan u maataan waxay uga jeeday nin wax gudaa kuma harin ninba kuma harin tolka ama garaabay qof wax kala garanayaaba kuma harin geeridii waraaba ahayd guul dariye hooge gablan baa ka haray maalintuu go'ay suldaaniya xaaji cabdi waraabo way boosatay waa midaan garanay okay iga hoo saaxiib si toos ah gabaygan wuxuu socdaa gabadha la yiraahdo Safiya Tusmo 2-3 goor baan ku celiyay magaceeda waxaan ku leeyahay Safiya waa Nimca Degan qofka kula hadlaysta gefka qaawan baan cida gale godka Allah ha nuureen hadday noolaan lahaayeen guur la waayay maragii ogaa kama garaabeene ma maqlays wuxuu geeyo oran lahaa sharciga diinta guulahay goortaas we fucking feel haddaad reer dhan gaadhsii istiri ceeba gebigooda cida gala haddaad istiri ceeb saar wixii ay galaanay gudaan uunku wuu garanay si fiican baa loo garanayaa gadaada hadda waa gadaada anoon beeldhan oo guurti iyo sheekh leh guudkooda marinayn xajiin lagu gumeeyaaye xaasha reerka aad magacooda sheegato xaasha gobonimo adigu baan xumaanteeda sheegaya carabkayga kama dhaco
markii aad galgalashada ku tidhi leebkayga gooya garhcastaada ceebtaad baddaan guurahayna bide weligeed bebeelgubi ifkay gaas ku hurisaaye waa adiga waa gabboodfal ugub xaajadaad gobolka keentaaye geed oday ka taliyaa ma niqin ruuxu garsooraya arrinta weligeed lama niqin aad odayada u soo dirtay garqasiis gallad hooyadii sharaf mudnayd goysay araxdiiye gambalayda soomaaliyeed alla maxaa naa kuu oydo hagoogtaada run mooday ruuxu gujaad tahaye ma geyaan haweenkuna waxaad geysatee qorane gabdhihiyo adaan dumar matelin ma mateshid gaarna dhaqanbiise gu salaada lagu qaayibaad galabta joogtaaye misna waad gabboodfali adoo heer ayay galay subxaanaka yaa cadiim guuluhu dadkaa uu boqreen caydu gini yeelin waa cidagale aan ka dhashay aan ku faanayo inaad hadal ku soo gaasirtaa waa gefyaa badane afkeeda kala haysan weyde guricii hadda guricii iyo qooshkaad walaaqanaysay haddaad sii wadood gaabsan kari weydo waxaan soo gembinayaa intii ceebku guud sudhane godolkii xumaantaad ka heli gaax qadhaadh badane garmaamee qof weynow digniin gaara baan diraye ramadaanta ii soo gashaan gaabsan leeyahay giiryaale kuma raagi karo goobta dirireede wadigii baxsaday dhowr erey intaad soo gantaad gelalef yacdaaye geb adoon ciwaankii ka siin joogin golihiina gurxankiya haddii waa digniin aanad damin guuxa iyo yuuska waxaad guran waxaad beeratee gooso tacabkaaga beelo gubaay ummad dhan oo laba reera oo sharaf iyo qadarin leh afkayagu ma gaadho samaroon siciid gob ma gaadho afkayagu laakiin way kuu bilaabantay ceebahaaga habeen qura kama habsaamayo haddii aan wax dambe ood soo xariiqda arko asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad waa anigii oo soo laabtay asxaabey haddii aad ku cusub tahay janalka waxaan kaa codsanayaa subscribe iyo like iyo share fara badan baa idinka codsanayaa aniguna wixaan soo arko baan idinla soo wadaagayaa asxaabey waxaan rajaynayaa inaad ka dharagteen gabadhi gabayga ay soo tirisay iyo hadaladii ay ku hadashay intaba waa anigii maaragtay screenka idin soo saaray marka walaalayaalow wax aan dhammaanayn maalin kasta silsilad socota ah silsilad socda siiri arrinta hadda waxay isku bedeshay markaan siiri arrinta safiis tusmo siiri bay noqotay socota aan la soconayna taxanay noqotay idinkaana ka dhigteen arrintaas gabadhaas ka haraadin wax ma maqashaan haye weli maanta waa taaganta anigu inaan soo afjiraaban go'aansadayba balse markaan arkay gabadha tan la yiraahdo nimca degan maxay ahayd gabayga ay soo akhrisay iyo hadallada ay ku hadashay iyadoo isku cadaysay dambigii hore ay ogeyd oo tuhunkiisa qof walba uu qabay bay maanta waxay nooga dhigtay marqaati cad bayaan ba iska soo dhigtay maanta waa soo hadashay alxamdulilah because xaqi baa yimid markaan wax qarsoona ma jiraan wax la qarinayna ma jirto marka soomaaliyey arka xaqdarrada meesha ka socota arka xaqdarrada hawsha safiya tusmo horaan idinkugu sheegay in qabyaalad loo adeegsanayo in baraha bulshada qabiil iyo difaac iyo awal arrinta rag bay ahayd maanta waxaa bilaabatay qaybtii dumarka welcome to social media dumarka qabyaalada maanta waa isa soo cadeeyeen waa caddahay wax qarsoon ma jiraan marka walaalayaalow soomaaliye qabyaaladeyn mayno waana weligeed intaan qabyaalad qof walaalkeena u adeegsanayna horumar ma gaarayno saasaan qayb u kala ahaanayna iyo gobol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu